بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا حقيه موقال كان يا قصة عجيبة حقيه جوجنا هدا waxaan joognaa channelka xaajiyadeyda Elvis iftiinka nolosha rabbigay ha xafido adinkana haydan xafido dadka halkan kala socda ku soo dhawaada muuqaalka kan qiso anfacaysa dumarka ayaan halkan ugu soo gudbinaya masha Allah waa haweeney iyo sodohdeeda la isku saladay ama yaana dhihin waa la isku saladay laakiin sodohdii baa arkila gabadha wiilkeedu u qabo waxa laga yaabaa dumarkiinan qaar ka mid ah inay maanta ka sheeganayaan sodohdood wiilka hooyadiis ama xaajigeeda hooyadiis ama ay wada nool yihiin oo rafaad ay kula nooshahay ama ay kala maqan yihiin laakiin rafaad waa la isku dirayaa hooyada way soo wacaysaa wiilkeeda waxay leedahay naagta maxaa ka joogtaa ducadeyda habaarkayga mid dooro iyo wixii la midka waxaa laga yaabaa in gabadhii ay toos inta usoo wada tiraahdo ayaa wiilkayga ma waxaad u qabtaa inuu naag waahay noocaadoo kale uguma talageli niyad jab iyo waxa inuu soo wacdo waa laga yaabaa qisadeennan waxaa la yidhaahdaa sodohday waxay ugula seexataa sariirtayda xitaa qolkeedii jiifka isoo gudubtay sodohda musiibada ay raadinayso iyo xumaanteeda qolkay deganayd iyo meeshii ay gabadhan gabar fiican waayo oo sodohdeel jecel oo dhib aan ku hayno bal u sabirta iyadoo dhibka xataa ku samaynayso oo adeegayso oo iyadoo kale sidoo kale uga soo qaatay marka gabadha baari bay u tahay sodohda laakiin sodohdii baa waxay tahay sun laga yaabaa sodohyo inay jiraan wanaagsan gabadhii wiilkeedu qabay in ay ku noqoto sun iyo balaayo halkaa dhuntaa u gasho marka adduunyadu waa iska imtixaan xaqiiqatan wax wanaagsan iyo sabir lagu wado waxaan ku dhaanto garan mayno marka sodohday sariirteeda igula seexataa waa qiso dhammaystiran annagoo kale reebin baan la wadaagaynaa cibraana ku jirta la socda waa qisooyinka mid ka mid a faa'iidooyinka badan loo xaqiiqooyinka oo dhacday waxaana noo sheegaysaa haweeney la qabo haweeney xaas ah la qabo haweeneydaasi dhib wuxuu ka haystaa sodohdeed sodohdan dhibkeeda wuxuu gaaray heer alaabteeda u khaaska ee haweeneydu adeegsato gabadhu adeegsato inay la adeegsato waa garan kartaa waxyaalaha u qaarka xataa shanlada ay ku shalaysato bay kula shalaysan kas bayna usoo raadsan shanladeeda waa loo soo goday meel taa shanlada gabadheeda waxay intaa ka raadinaysa waa maxay waa khilaaf doon way subxaan allah say mushkilado u abuurto u hal abuurto si khilaaf ay u hal abuurto si isku dhac meesha u imaado ayay xataa aalaadkeeda hoose ay isticmaalayso go-eeda xiranaysaa gabarsaarteeda xiranaysaa gorgoroteeda xiranaysaa surwaal wax kasta xiranaysa iska taa heer halkaasi sariirteeda intay tagto qolka jiif way iska seexanaysaa markii lasoo goglo way ku falaadaysaa waaba sodoh caruuraad moodaa laakiin haweeneydan gabadha tan falcelinteedu muxuu noqday see u dhaqanta adaan ku su-aalay inay helfaha u qaado inay ninka halkaa ku dhegto tiraado wareer islaanta iga rar iyo wixii la midka miyaa filaysaa maya si fiican u dhegeysta qisada miyay ciqaabtay waa maya qisada akhrinteeda ee la soo gaartay ayaan ku ogaan doonaa biidn illaah cibrooyin tiro badan baanan kala soo baxayna qisadan waxay dhex maraysaa waa sodohdii iyo gabadhii sodohda loo ahaa baa isku taagan qisadan waxay ku bilaabatay sida tan waxay leedahay haweeneyda tan sodohday waxay seexataa qolkayga jiifka dhib badan bayna igu haysaa kelmad kastoo qisadan ku jirtana waa xaqiiqo kamaysa tegin waxayna gabadha tan saa sodohda dhibka ugu haysay muddo dheer muddo gaaban xataa maaha waan guursaday bay tiri anoo jira 19 sano gabar yaraanoo ha guursaday anoo adduunyadan iyo isbedbedelkeeda iyo sida loola dhaqmay iyo howlahan iyo waxba ka fahansanayn baan guursaday bay tiri qoys xataa sida loo dhaqo anoo garanay laakiin bay tiri markaan guursaday ilaahay wuxuu igu salladay ninka
qoyskiisii hooyadii ka bilow gabdhihii walaalaha waa askar diyaara oo inay meesha galaan bay diyaar u yihiin haweeneyda tan oo ah sodohdeed waxay tiri darisku waa necab yihiin waa haweeney qaylo badan oo dhibaato badan oo mushkilad badan darisku waa necab yahay xitaa walaalaheeda gabdhaha iyo walaalaheeda wiilasha waa necab yihiin caruurteeda qaar ficilkaasay ku karahaysteen markaan yacni guursaday ninkayga waan jeclaaday dee haweeney kasta say ninkeeda u jeclaato ninkayga waan jeclaaday maasha allah yacni waxaa noqday inaan iska dhigo haweeney macquula ilaa xad oo ah mid ninkeeda u dadaasho oo u adeegta insha allah qofku markuu sidaa yahayna yacni uu niyad wanaagsan yahay oo uu dadaalayo oo uu faraxsan yahay marka niyad jab iyo mushkilad ay kaga timaado dadkiisa ama dadku wanaagga u sameynayay qofkaas marka dambe wuxuu isu bedelaa wuxuush subxaan allah hadalkii sii wada waxay tiri sidaa markay dhacday mushkiladihii yani soo wajahay waxay ka bilaabmeen waa sodohday bal markaa ninkayga u dadaalayo oo ninkayga aan raalli gelinayo waa iga degaysa waxay leedahay waxaan samayn saa iyaday ninka iskugu dirto waa inta badanna waxay tiri waxaan niyaddayda gelin jiray waa hooyadaa ayaa iska dhaaf hooyadaa oo kale waay hooyadaa caadiga haddaysaan kugu noqoto waa iska dulqaadanaysaa laakiin bay tiri arrintu sidaas yacni kuma sii joogsan waa sii socotay waa sii joogtay dagaal ayay hurinaysaa sodohdii qolkayga idan la-aan iska soo gelaysaa ii gaarkaa waxyaalaha aniga ii gaarka ay adeegsado ayay adeegsanaysaa oo isticmaalaysaa iyadoo weliba aan arkayo hortayda dharkayga ku xiranaysaa alaabtayda isticmaalaysaa say maaragtay ii carageliso oo iga xanaajiso oo maaragtay inaan hadlo oo aan u jawaabo oo aan ka ceshado ay igu khasabto bay waxaa u samaynaysaa laakiin bay tiri waan ishilmaamsiin jiray bay tiri hooyadayoo kale aan ka soo qaadi jiray yacni aamus ayaan magan geli jiray bay tiri mararka qaar bay tiri albaabka qolka isagoo furan baan seexan jiray ninkayguna waa maqan yahay oo markaa ma joogo xoogaa meeshuna markaa way kulushahay marka waxay isku dayeysaa albaabka inay soo xirto ma rabto markaan aan xirtana way furaysaa aduu qofka haddaba shaqaynayo colaadaada raadinaya balse uga waxay tiri musquul baa qolkeena noogu dhex yaalay albaab umaana samaynoo xoogaa daah baan usii daynay maadaama qolkeena noo gaarkaa aniga xaajigay ku yaalo waxaa laga yaabaa iyadoo qolka joogta inaan musqushaa isticmaalo macquul inay igu soo gasho macquul inay daah faydo musiibo baa meeshaa ka taagan bay tiri laa xawla walaa quwata illaa billaah hase yeeshee hooyaday oo kale hooyaday markaan yaraa ii qubayn jirtay igu dadaali jirtay ayaan ka soo qaaday waxa mushkiladaba oma arko yacni oo maaragtay aad ba anigu iskuma xamaaseeyo aamuska iyo dulqaadka ayaan isticmaalaa bay tiri maalin maalmaha ka mid ah gurigayga anoo ku jira xoog ku soo gashay bay tiri markaasay boorsadayda furtay markaasay dharkayga kala baaranaysaa miday xirtay rabtaa inta badan bay tiri mar walba waxay isku dayeysaa in ay yacni ceebayso dadka hortooda gaar ahaan wiilka ama ninka walaalihiis iyo gabdhaha isaga la dhashay iyo wixii la midka markaan kulanno oo macnaha casho la iskugu imaado ama danan kale la iskugu imaado waana lasa degan yahay waana wada daris hase yeeshee anigu markaas waa iska sabri jiray bay tiri waa iska aamusi jiray iyaduna waxay intaa ka rabtaa inaan hadlo inaan si dadku arkaan oo hadhow la dhaho waatan ninka inta loo sheego dhaho xaaskaadu hooyadaa bay caaysaa hooyadaa bay yacni isla murmayaan walaalihii ka maqnaatay marka iyadu mar walba waxay doonaysaa inay jag yar iga heeso fursad iyo jaanis bay igu gaadaysa aniguna shib afhee daboolan waa dahab baan maangalabid iyadoo dharkayga xiranaysa iyadoo qolkayga gelaysa iyadoo iga daba shaqaynaysa sabirkaa dheer ayaan ku waday bay tiri cuntada marka loo keeno way isbedelaysaa ma cunayso tan marri bay ku leedahay way kugu soo daadinaysa anna waa iskaga sabray mar waxaan yacni dhahaa hooyada mar waxaan dhahaa iska dulqaad waxaan kaloo samaynaa qofka hadduu sidaa noqday ma la noqonayna suuqa markaa aado way raacaysaa wax walba iga daba shaqaynaysaa saasay ii daba dhigata bay tiri 4 sano ayaa xaaladdaa ku jiray bay tiri dhibaatada badan oo mushkilada badan 4 sano markay sidaa noqotay aan saa u sabriyey mar hooyada ku xisaabinay u sabriyey maalintii waa isdhiibtay maalintii dambe waa isdhiibtay sodohdii
lugaha iga shumis raali noqoyd waxaan kugu sameeyo in cafi waa heshiin way isbedeshay waxaan ogaatay bay tiri qof inaan ahay sabir badan oo aan xumaan la rabin way xishood oo way isku xishood dib bayna u noqotay heer waxay gaartay wiilasheeda gabdhaha ay qabaan dhammaan aniga iga hormariso oo aniga ila tashato oo aniga fikirkeyga ku shaqayso oo aniga ilaahay hayin iga dhigay shay kastoo iyada khaas u ah oo igala tashan jirtay markii dambe 4 sano kadib dagaalka igu haysay dhibka igu haysay ka daba shaqaynta igu haysay ceebaynta igu haysay wax kasto oo dhib ay geysatay bay tiri 4 sano anna mar waa hooyada kale mar waa iska sabray waxba aamus iyo sabir cidna uma sheegin ilaahay wuxuu dhaxal siiyey in isbedesho 4 sano kadib waxay noqotay saaxiib hoosaad siraha wadaagno wax walba iisoo sheegto igala tashato wax walba ayay noqotay 4 sano kadib waxayna noqotay mid hariya hameen ku ducaysa oo dhahda ilaahow naag kasta wiilkeeda si gabartan oo kala quruxdaan badan dulqaadkan badan ilaahu ku irsaa waagi dambe qoyskii waa laga dareemay gabdhihii ay dhashay iyo dadkii dhammaan waa in dhib igu hayso waa la dareemayay oo markaan isla joogna isla sheekaysanayno jacbi igu dhijinaysaayo hadalkay iga xir iyo wixii la midka garanaysaa markaas kuma marka waagi dambe isbedeshay oo ay noqotay sida adoon oo kale way la yaabeen dadkii kale see ku kasbatay sodohdaasaan ma ahaan jirin sodohday masiibada ay dariska dhan yaqaaneen ee qaylada badnayd ee rafaadka badnayd ee mushkilada badnayd maanta saanay kuu tahay maxaa ku kasbatay maxaa ku samaysay maxaa cabsiisay ayay leeyihiin qof walba subxaan allah waxayna tiri boqolkiiba 90 mushkiladaha iyo dhibka ay ugu haysay sodohday ninkayguma ogeyn oo mana sheegin laana bay tiri haddaan u sheego waxaan ka cabsaday laba mid ima aniga inaan isku dhacnaaniyo asaga waa ima hooyadii inuu guriga ka cayriyo waana isjeclayn gaar ahaan oo aniga i doorto hooyadii banaan ku tuuray ka cabsanay ayadaaba u naxayay marka waa iska aamusi jiray waxba uma sheegi jiray boqolkiiba 90 toban baa laga yaabaa si dad badan inay ku soo gaaraan oo gabdhuhu sheegaan oo darisku sheegaan laga yaabaa laakiin inta badan uma sheegi jirin anna markuu i weydiiyo inta yar oo ogaado waxaan dhihi jiray dhib ma laha wax iska caadi waa hooyo ayaan dhihi jiray way jiray waxaan qisadeeda u sheegayaa gabar kasta say ula tacaamusho sida ugu fiican sodohdeed oo aysan la tirsan oo hooyadeeda kale ka soo qaato haddaad ilaahay baridid aniguna mar walba ilaahay baan baryi jiray ilaahay baan ku carari jiray waana sabri jiray ilaah waa aragtaa ayaan dhihi jiray qalbigeeda jilce mushkiladda igu watana ee igu wadan ilaahu tus oo maaragtay wanaag u bedel ilaahay baan baryi jiray qalbi saalix qalbi khaalisa iyo niyad saafiya ilaahay ku baryi jiray ayadana wax dhiba kuma samayn jirin waana dul qaadan jiray laana kuwa sabra ilaahay baa abaal mariya waxa laga yaabaa gabar yahay marka ninkaadu ku soo guursado oo hooyadii iyo sodohdii kula degan tahay iyo ama walaalihii dhib badan ku soo maro adigana falcelin kalaad muujisid laakiin haddaad dulqaad muujisid adkaysi muujisid ilaahayna ku carid ilaahay barid ilaahay xaalka waa bedela qofkii qalafsana ilaahay waa kuu jilcinaya idfac billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu cadaawah hay qofka cadaa yani xumaanta kugu sameeyo mid wanaagsan u abaalku sida saan oo kale fa idha alladhi baynaka wa baynahu cadaawah adiga iyo qofkii kale cadaawadu idin ka dhaxaysay ilaahay wuxuu yiri ka annahu waliyun xamiim gacal buu ku noqonayaa dabacsan qofka adka laakiin wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadin cadiim hase yeeshee ilaahay wuxuu leeyahay dhaqanka ma yeesho ilaa qof sabir la mooyaan adkaysan sida gabadhan oo kale oo dheef leh nasiib leh mooyaan marka saan oo kale la rabaa in aad sodohda kula dhaqantid insha Allah ilaahayna aad baridid ilaahay waa bedelaya hayin bay marka dambe ku adeegto ku noqonaysa insha Allah inta waxa arkaysaa dumar ka cabanaya sodohood ama gabadhii wiilka dhalatay wixii la midka marka qisadan maxaan ka faa'iideynaa qisadan ko waxaan ka faa'iideynaa yani sodohda kula dhaqan sidaad jeceshahay hooyada in loola dhaqmo ilaa hooyadaaba kuwa kale sodoh u tahay oo walaalka gabadhu qabo hooyada sodoh way u tahay gabadhaas hooyadaas say ula dhaqmayso saad u jeceshahay si wanaagsan inay tahay adna ula dhaqantan qisadan yani waxaan ka faa'iideynaa waxaan kaloo ka faa'iideynaa in badan sabir oo dulqaado si ujeedooyinkaada aad u gaartid ujeedooyinkaada si aad u gaartid in badan sabir Soomaalida hore waxay dhihi jireen dantaada masalle baa loogu seexdaa
يعني هيك كجارتي ujeedadaada inaad gaartid inaad sabir u muujisid ayay ka waramayaan يعني saad ujeedadaada iyo dantaada iyo yoolka aad leedahay u gaartid sabir muuji marka waa noolaanaysaa nolol farxad leh oo degan insha Allah qisada inay cajabisay waan filayaa sina share gareeya like na dhahaya Elvis Family Channel iftiinka nolosha subscribe na daha Allah idin barakeeyo qisooyin waa laga yaabaa qoysaska ku saabsan halka kan aan ku soo qaado aan ku soo gudbino إن شاء الله هاد بنتي نصور تكاشا وحيد لنا هاي كون ولا فرحة يوذكر مشكلة الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.